kani waa guriga martida ee dowladda Iiraan waana goobta uu ka dhacay dilka Allaha u naxariistay Ismaaciil Haniya madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas oo dalkaasi kaga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dhowaan loo doortay dalka Iiraan. Dhismahani waxa uu ku yaalaa Teheraan waxaana uu ka mid yahay goobaha ugu ilaalada adag marka la joogo gudaha waddanka Iiraan. waxaa la sheegaa in dhismahani la dejiyo martida heerkeedu sarreeyo iyo madaxda dagaalyahanada Iiraan ay taageerto ee ka dagaalama bariga dhexe. haddaba warbixintani waxaynu ku eegi doonaa 3 qaab oo ay khubarada ciidamadu ku sheegeen inay macquul tahay inuu u dhacay dilka Ismaaciil Haniya madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas. ku soo dhowaada warbixinteena maanta. halkani waa Somali Discovery, aniguna waxaan ahay Cabdifataax Xaaji Suudi. waxyar haddii aan dib u milicsanno guriga martida ee Iiraan waa guri ka kooban 5 ilaa 6 dabaq oo ku yaala dhanka waqooyi ee Iiraan, waxaana uu u dhow yahay xarunta dhaqanka iyo taariikhda ee Saadaad, balse hareeraha cidi uguma dhowo waxa uu ku yaala goob buuralay ah. dabaq kasta oo dhismahan ahayna waxa uu leeyahay qolal kala duwan. 3 qaab ee khubarada ciidamadu tilmaameen inay macquul tahay in loo fuliyo dilka Ismaaciil Haniya ayaa lagu sheegay inay kala yihiin: 1. in bambooyin lagu xidhay 3 qol oo ka mid ah dhismaha gurigani kadibna la qarxiyey iyadoo remote la adeegsanayo. aragtida labaad waxay tilmaamaysaa in dadka howlgalkan fuliya ay adeegsadeen gantaal kuwa riddada gaaban ah kuwaasi oo ku sugnaa buuraha ku teedsan dhismahani, halka dadka aragtida saddexaad qabana ay sheegayaan in howlgalkan loo adeegsaday diyaaradaha Maraykanka lagu farsameeyo ee F-35 oo ay Israa'iil lahayd. 7 khabiir oo dhanka ciidamada ah kana soo kala jeeda bariga dhexe, Iiraan iyo Maraykanka ayaa aaminsan aragtida koowaad ee tilmaamaysa in qaruxu ahaa mid muddo ka hor lagu sii diyaariyey qolka uu deganaa Ismaaciil Haniya, balse waxaa xasuusin mudan in goobtani ay ka mid tahay goobaha ugu ilaalada adag dalka Iiraan, waxaana amnigeeda mas'uul ka ah ciidamada ilaalada kacaanka. in la jeediyo eedayn ku aadan in kooxda howlgalkan ay u xil saartay Mossad ay gudaha u galeen dhismaha sidan u ilaalada adag islamarkaana qaraxa ku sii diyaariyeen qolka uu degay Ismaaciil Haniya ayaa loo arkaa waxay adag tahay inay dhacdo. muuqaalkani waxa uu muujinayaa in markii Ismaaciil Haniya uu soo gaadhay guriga martida uu degay qolkan dabaqa sare ku yaala, waxaana la sheegaa in qolkani ahaa midka dookhiisa ah xilli kasta oo uu Iiraan yimaado uu ku degi jiray. tani waa sababta warbixinno badan oo arrintan laga qoray looga soo xiganayo in bambadu ahayd mid goobta lagu sii diyaariyey 2 bilood ka hor, maadaama oo qolka uu hadda dilkiisu ka dhacay ahaa midka uu ugu degista badan yahay dhismahani. waxaa eedda dilka inta badan dusha loo saarayaa sirdoonka Israa'iil ee Mossad, halka dadka qaarna ay tuhunsan yihiin Iiraan qudheeda. waxaa loo malaynayaa in walaxda qaraxan dhalisay ay ahayd mid ka samaysan maadada C4 oo leh rumuud laga hagayo iyo qayb walxaha qaraxaya ah oo meesha lagu sii rakibay, taasi oo ka koobnayd walaxda qaraxa dhalisay iyo caag dusha lagaga dahaadhay. inkastoo qaraxa ka dhalan kara maadadan C4 tahay uu burburin karo dhismaha qol dhan, haddana waxay baaxaddeedu ku fidi kartaa 1 ilaa 6 mitir. khubaradu waxaa kaloo ay tilmaamayaan in qaraxa goobtan lagu diyaariyey 2 bilood ka hor aanu ahayn mid ku kooban keliya qolka uu degay Ismaaciil Haniya, balse ay jireen 2 qol oo kale oo ay iyana yaaleen qaraxyo la mid ah kuwa ku xidhnaa qolka lagu dilay hogaamiyihii xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas iyo ilaaliyihiisii gaarka ahaa. rimoodka qaraxyadan ayaa la sheegay in laga hagayey buuraha ku teedsan dhismahani. dadka qaba aragtida labaad ee sheegaysa in ciidamada Mossad ee qaybta ka ahaa howlgalka uu adeegsanaya gantaal kuwa riddada gaabanahi ay ku sugnaayeen buuraha. waxaa jira warar la soo warinayo oo sheegaya in dad arkeen walax laga soo tuuray dhinaca buuraha, taasi oo qarxisay dhismahani. walaxdani aynu ka hadlaynaa waa gantaalka riddada gaaban wax ka dila ee loo adeegsado liidka taangiyada oo sidoo kalena loo isticmaali karo bartilmaameedyada muhiimka ah. gantaalka loo adeegsaday howlgalkani ayaa lagu sheegay inuu masaafo ahaan gaari karay 200 oo mitir ilaa 4 kilomitir. waxaa la filan karaa inay tani tahay qaab kale oo loo fuliyey qarxinta dhismahani, iyadoo 2 ka mid ah raggii fuliyey hawshani ay u soo dhowaadeen dhismaha una soo jirsadeen masaafo gaadhaysa ilaa 4 kilomitir. halkaasina waxa ay ka soo rideen gantaalka dhismahan haleelay iyagoo adeegsanaya thermal vision si gantaalkani uu ugu hago bartilmaameedka loo asteeyey. waxaa xusid mudan in ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ay sheegeen in gantaal kuwa riddada gaaban ah uu miisaankiisu dhan yahay 7 kilomitir laga soo riday bannaanka dhismaha weerarkana lagu fuliyey.
aragtida saddexaad ayaa tilmaamaysa in diyaaradaha Maraykanka lagu farsameeyo ee F-35 oo ay leedahay Israa'iil ay bartilmaameedsatay dhismahani, inkastoo Iiraan ay haysato nidaamka difaaca hawada ee S-300 oo sanadkii 2016 lacag gaadhaysa $800 milyan kaga soo iibsatay dalka Ruushka. haddana Israa'iil ayaa la filan karaa inay biimayso mid ka mid ah diyaaradaheeda F-35 oo qiimo ahaan joogta $100 milyan si ay howlgalkan u fuliso. si kastaba ha ahaatee, waxaa loo badinayaa in fulinta dilkani loo adeegsaday gantaalka ridada gaaban oo laga soo leeshaamay buuraha ku teedsan dhismahani,